markana deegaanka milxo oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaa markii labaad wuxuu shalay galinkii dambe dagaal ku dhexmaray qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo milishiyo ka tirsan al-shabaab oo doonaya sida ay wararku sheegayaan inay canshuur ka qaadaan ilaa hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalkaas. maxamed xasan dhalo oo jooga magaalada Boosaaso lana socday dagaalkaas ayaa goor dhaweyd Faarax Lamaane u waramay. waa mahadsantahay Faarax Lamaanow. shalay galab ayay ahayd markii sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan Puntland warbaahinta u sheegeen in wax lagu turtuuray oo hoobiyaal lagu riday magaalada kabacdina ay shabaab weeraray laakiin ciidamo halkaas ku sugan oo ka tirsan kuwa dawladda Puntland iyo kuwa kale oo ah ciidamada deegaankaasi iska abaabulay oo muddooyinka u dhameeyay shabaab kula dagaalamayay deegaankaasi ayay iska caabin kala kulmeen waxayna sheegeen mas'uuliyiintaasi in shabaab dib loo celiyay oo deegaanka aysan qabsan laakiin arintaasi shalay ayay dhacday dhowr jeer oo horena halkaas ayay iskaga hor yimaadeen dad deegaanka ah oo is abaabulay iyo ururka shabaab. dhalo waxaad iga warantaa deegaanka iminka waxaa la leeyahay isgaarsiintii waa ay go'an tahay meeshana waxbaa ka dhacay maxaan ka ognahay? isgaarsiinta waxaa la ii sheegay in hadda ka hor ay la gooyey oo xitaa fiilooyinka iyo birihii taawaradii taagnaa xarkihii qaadi jiray isgaarsiinta ahaa in la jaray oo cidda jartayna aan la xaqiijin laakiin arrintaasi waxay sababtay in halkaasi isgaarsiintu ay ka go'an tahay oo aan telefoonadii la heli karin oo dadkii iyo xiriirkoodii u adkaaday marka arrintu sidaas ayay u dhacday markii horeeto wayna ka go'an tahay isgaarsiintu. meeshan lagu dirirayo ee la yiraahdo milxo iminkana markii labaad ay tahay intaan ognahay shabaab iyo dadka deegaanku ay ku dirirayaan masawir ma naga siin kartaa maxay tahay? deegaanka la yiraahdo milxo waa deegaan buureed hoos yaala casha madow silsilada golis hoosteedu ayuu ku yaalaa. deegaankaasi waxaa la yiraahdaa Macagta wuxuu hoos tagaa degmada Laasqoray ee gobolka Sanaag. halkaasi 3 sano ilaa 4 sano ugu dambeysay waxaa joogay dad ilaa 5,000 gaaraya oo isaga kala yimid deegaamo ka tirsan Sanaag iyo Bari iyo xitaa dadka qaarkood ay togdheer ka yimaadeen oo dadkaasi ay u joogeen halkaasi macdan in laga qoto oo dhulka godad waaweyn oo ilaa 5 mitir hoos u qodan dhulkaasi laga qodo saacada yaaliin mashiina yaaliin oo wax lagu farsamaysto oo arintaasi ayaa dhulkaasi intii ugu dambeysay ka jirtay deegaankaasi milxa la yiraahdo. isqabadka dadka deegaanka iyo shabaabkana waxa uu ka soo bilowday sida ay noo sheegeen dadka deegaanku in meeshan cashuur ayaan ka qaadaynaa macdantana la soo baxdaan dadkii deegaankuna ay diideen. iska horimaad ayaa markii koowaad dhacay dadkaasina way isabaabuleen iska horimaadkaasi kadib ayaa ciidamo ka tirsan kuwa Puntland meesha tageen marka deegaanka noociisu waa sidaas. maxamed xasan dhalo ayuu ahaa oo Faarax Lamaane u waramayay markana